Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray soo dhawaada mar kale video cusub kusoo dhawaada iminkana waxaan eegaynaa geemkii xalay Arsenal ay ciyaartay ee u dhexeeyay Arsenal iyo Fulham waxaan geemka u rating gareyn doonaa ciyaaryahanada si aad nooga barateenba haddii aan marka hore ku bilaabo Mikel Arteta booska Arsenal ama coachkeeda ayaa xalay wuxuu xidhay 100 game oo Premier League asaga in charge intuu Arsenal manage gareynaya ama coach uu ahaa geemkiisii 100aad ayuu xalay u ciyaaray ee Premier League marka iyada in details taas waa fiirin doonaa mar inta game uu badiyay inta game uu draw u galay inta game uu lose gareeyba saacadii horto taalka asaga dhigna oo ninka xalay inuu xidhay 100ka game sida oo la socda teeda kale haddii aan ciyaaryahanada aan u codeeyo markaan ka bilaabo Aaron Ramsdale in goal xalay aad ayuu u fiicnaa he kept us in the game maartay u arkaysan xalay ninkan ciyaaryahankan Mitrovic waa ciyaaryahan aad u adag aad baa oo la yaabay season-ka waxaa la yiri ciyaaryahanka championship-ka 40 something goal ayuu xiray caadi ma ciyaaryahanka qaabka uu wax u press gareynay iyo heedho walbo Arsenal ay gudaheeda la soo dhigayna asaga baa madaxa la helay marka laba saves oo khatar ayuu save gareeyay oo maartay game-ka nagu sii hayba kuwa hadii la xiri lahaa finish ayuu aan la xalay game-ka marka Ramsdale waxaan siinayaa 7 out of 10 aad ay u fiicnaa xalay Ben White hadii asna aan dhanka iyo right back aan u gudbo Ben White xalay isna aad ayuu u fiicnaa xalay waxaad dhigi kartaa waa ciyaaryahanada aadka ugu fiican ayuu ku jiray Ben White ma xumeen qaabka skillskiisa iyo banoontiisa iyo maaragtay xoogaa mentality waxa uu ka maqan banoonta horey loo waday maaragtay offensive forward kama ahan ciyaaryahanka xalay aad ayuu u fiicnaa marka Ben White waxaan siinayaa 8 xalay aad ayuu cajibiyay ciyaartiisa ninka ku xigo waxa weeyaan waa Saliba sida ogtiin season-ka ninkan intuu imaaday teamka mentality fiican ay leeyihiin maaragtay qaabka oo maaragtay Arsenal sida waxa lagu arkay maalmahan season-kan sida uu bilaabay mentality maskax hadii oo maaragtay hadii gool laga xiro inaanan la niyad jabin sidii oo season-nadii hore baan arki jirnay Arsenal markii gool laga xiro fans way niyad jabayaan players way niyad jabayaan game-ka wuxuu leeyahay kan wuxuu ku dhamaaday waan laga badiyay lose weeyaan kan waa mentality ciyaaryahanka uu la imaado ay ka mid tahay isaga iyo Gabriel iyo Zinchenko maaragtay marka mentality-gaas aadka u fiican ayuu ciyaaryahanka uu ku soo daray teamka marka xalayna aad ayuu u fiicnaa Mitrovic si fiican ayuu la dhaqmay u celinayay isna 8 ayaan siinayaa ninka ku xiga waxa weeyaan Gabriel Magalhaes ninkan xalay waxa ogtihiin inuu mistake uu sameeyay dadka qaar ayaa waxay leeyihiin mistake-gaas inuu Saka banoonta oo dhanka difaaca u soo kororso ma ahayn laakiin football qofka garanaya waxa weeyaan waxa ka mid ah in difaacyadaada aad ku kalsoon tahay maaragtay banoonta ku aamini karto Sakana sida ayuu sameeyay difaaciisa ayuu banoon ku aaminay uu soo tuuray ciyaaryahankana banoonta xalay hadaa daawanaysay si qurux badan ayuu u controlay option badan ayuu haystay uu baasi karay uu tuuri karay maaragtay waxyaabo badan ayuu sameyn karay laakiin hase ahaatee ciyaaryahanka mentality isna waxa ku jirtay kor oo wuxuu fiirinayay maaragtay hore oo ma tuurta iyo dhaxda u baastay waxaas intuu banoonta ku dul fikirayay ayuu Mitrovic ciyaaryahan aad u fiican oo maaragtay high pressing leh ayaa ku imaaday banoontina waa laga qaatay waana la dhaliyay ma fahanti marka taas dhib ma lahan Premier League Premier League waa adag yahay in generalna waa football mar walba mistakes waa sameynaysaa laakiin mistake markaa sameeyay kadib maxaa dhacay weeyaan mar react gareynaysaa qaabkee uu uga daba imaanaysaa maxaad sameyn kartaa miniye jabi doontaa mise laakiin ciyaaryahanka wuxuu sameeyay reacted inuu khalad sameeyay ayuu gartay khaladkiisa ayuu xiriir waan saxaya sidoo Saliba uu sameeyay goal ayuu iska xiray dabeedna goal ayuu ka daba keenay marka sida ayuu sameeyay ciyaaryahanka isna xalay inkastoo aanan sida aan ugu reed gareynin 7 ayaan siinayaa 7 out of 10 waxaan u maleynayaa inta inay ku filan tahay ciyaaryahanka halka habeenay ciyaar xun maaragtay uu ciyaar xun u soo bandhigayna ama hal khalad oo ka fakaday ciyaar xun ma soo bandhigine laguma xukumi karo oo laguma nici karo marka Gabriel waxaan leeyahay keep going sidoo kale left back xalay soo noqday Kieran Tierney ayaa isna xalay game-ka aan sida u fiicneen gudaalin waa ka dareemaysaa injury inuu hadda ka soo kacay sahatee difaaciisa markii la aad ayuu fiicnaa wuxuu ku xumaa oo kaliya waxay ahayd banoonta inuu hore u wado offensive marka isna waxaan leeyahay 6 ayaan siinayaa inkastoo hadee game-kan uu sii ciyaarno isla markiiba la sii qaatay ciyaaryahanka waxa urjeenaya inuu maartay form
garoonkiisa uu kusoo noqdo. Sidoo kale Elneny ayaa isna xalay isna Partey oo injury ku maqnaa xalay booskiisa soo buuxiyay, wax qalada ma sameynin, difaac sida ka rabtay burburiye lambar 6 way asay wax kale faa'iido ka helaysid male inuu bulon hore kuugu wada kama helaysid. Elneny weeyaan waa taqaanaan, laakiin shaqadiisu uu qabsaday marka isaga waxa leeyahay 7 ayaan siinayaa. Granit Xhaka sidoo kale isna xalay inkastoo freedom sida uusan haysanin artay uu fiicnaa oo banoontiisa iyo artay xoogaa assist xitaa uu heli lahaa xalay, laakiin waa laga ciyaaray Gabriel Jesus asha uu soo dhigay waxay ahayd inuu maartay shot fiican intuu qaato ciyaaryahanka sidoo assist u helo isna gool u helo saahatee ma dhicin mana suurtageloobin. marka waxaan leeyahay Granit Xhaka aad ayuu fiicnaa sidaan seasonkan uga barnayba, askana waa soo jeclaanaya ninkan waa hore waa la necbaa, marka waxaan leeyahay isna waxaan siinayaa 7 ayaan siinayaa. sidoo kale Martin Odegaard oo isna xalay number 10 noo dheelay mar walbana inoo dheelo ayaa isna xalay goolka quruxda badan ayuu helay, inkastoo gool badan uu xiri karay hase ahaatee matchkayga xalay asaga ayaana loogu codeeyay, waayo wax walba ayuu sameeyay si ay Arsenal ciyaari ay ku badiso. wuxuu ahaa waxaas dhigi kartaa ciyaaryahanka kaliya xalay wuxuu ahaa maartay team kale inuu dhabarka ku qaato rabay, si walba uu korosay banoon dadka dhexdooda waa ku dhex driving gareeyay, maartay Chiubiero khatar waa bixinayay. overall ciyaarkiisa aad ay u fiicneed, laakiin hadii maartay waxaan soo xasuustay xalay markaan arkay ninkan maartay korosyada uu meesha soo dhigay iyo baasaska uu bixinayay iyo Ozil oo waxaan soo xasuustay oo Welbeck uu hortaagan yahay Danny Welbeck oo banoon si walba qurux badan u soo dhigay asagii Olivier Giroud banoontiisa aan la xirin. marka Eddie Nketiah uu siiyay oo wuxuu siiyay Martinelli ayuu siiyay maaragta marka ciyaaryahanka chances badan ayuu xalay uu sameeyay, laakiin waxa waay maartay nasiib darro cid qaadanaysa ma lahan. marka Odegaard marka waxa siinaya caaw asaga garoonka uu fiicnaa ayaan leeyahay front 3 markii la fiiriyo waxa siinaya 9. dhanka kale Saka ayaa isna bariyahan ma aqaan gamekiisa aad ayuu u yari liitaa maartay saas maartay mentally gameka ugu ma jiro oo xoogaa xalay haddana wuxuu ku darsaday maartay decision xun ciyaar maartay banoonta oo quruxda badneed oo Ben White miya inuu soo dhiga umaleynaya 1-1 head uu gafay maaragta. marka adii ciyaaryahanka inkastoo maartay ciyaaryahan aad u fiican uu yahay Arsenal hadda ay ku tashanayso ciyaaryahanada ay ku tashanayso uu ka mid yahay cabaarna uuna soo waday hadda profile-kiisa iyo standard-kiisa marka uu codeyno ciyaaryahanka caaw maartay adii ciyaarta xalay waxaan siinayaa 5 out of 10. marka waxaan leeyahay ciyaartan xalay ciyaartiisa ma ahayn. sidoo kale dhinaca kale hadii aan fiirino Gabriel Martinelli ayaa isna maartay xalay sidoo kale gamekiisa ma ahayn gamekan asna yahay maartay quite game xoogaa uu yara dansan ayaa la oran karaa. mar iyo laba mar miya ayuu run qurux badan intuu sameeyay oo box uu soo dhaxgalay wax la rabay inuu maartay uu soo dhigo maartay maqas intuu soo dhiga meesha laga xiro banoon ayuu isna maartay angle uu gool ka xiri karan ayuu darbo ka soo tuurayay. marka isna xalay inkastoo xoogaa Saka uu ka yaroonaa laakiin maartay gamekiisa xalay ma fiicneen isna 6 ayaan siinayaa. sidoo kale Gabriel Jesus ayaa isna ciyaaryahanka hadda number 9 aan ku tashanayno overall gamekiisu qurux badnaa oo uu jeclaa inuu gameka uu badiyo gool uu xiro oo maartay saatee maartay inkastoo oo Granit Xhaka banoonta uu siiyayna uu xiri lahaa mid kale isna Saka miya ama Odegaard uu siiyay isna oo inuu xiray laga rabay oo xirin hase ahaatee mentality iyo qaabka markuu teamka u maaday uu sida u bedelay iyo sida hadda teamka aan ku socono ayuu ciyaaryahanka sabab u yahay. isna waxaan siinayaa 7 out of 10. sidoo kale Eddie Nketiah ayaa early in the game isna lagu soo tuuray inkastoo uu ciyaaryahanka markuu saa u maaday gameka uu bedelay oo teamka xoogaa mentality fiican intay heleen maartay ilaa deep down dhaxda ayuu soo degay oo banoontana meesha uu ka hagaajinayay. isaga laftirkiisa gool badan ayuu xalay xiri lahaa markay ugu yartahay 2 uu xiri lahaa ama 3 way chances badan ayuu waste gareeyay maartay uu khasaariyay. marka laakiin imaashihiisa wax badan ay teamka u bedeshay maartay wax badan ayuu bedelay markuu imaaday. isna sidoo kale waxaan siinayaa 7. Mikel Arteta ayaa isna noo soo haray oo maartay decision-kiisa xoogaa waxa lagu xuntaa maartay inexperience inay khibrad ay ku yar tahay. waxaa ri mataqaana maartay gamekan oo kale gameka cabsan lahayd ma ahan gameka cabsan lahayd ma ahan gameka isku furi lahayd ma ahan. marka ay team kale ay change sameynayaan sabka ay bedelanayaan adigana waa inaad sabab keensataa ciyaaryahan maartay fresh keensataa saacadeeda isagana waa coach oo khibradiisa leh wax kale ayuu eegayay fanskana wax kale ay arkayeen oo waxay islahaayeen Fabio Vieira Mokena oo maartay Emil Smith Rowe Mokena oo maartay ciyaarta way isbedel lahayd hase ahaatee maartay change-giisana waa ku adkeeyay teamka oo Eddie Nketiah kaliya uu keenay labada kalena hadii Tomiyasu iyo Rob Holding goolka u dambeeyay markii la xiray ayuu gadaal ka keenay hase ahaatee way u shaqeysay oo gameka uu badiyay
marka ay u martana hadii waxa ku qabsan karta malaha Soomaha coachka waa u codeynaysa laakiin xalay haduu isagoo sab uusan keenin lahayn sidaan uu ku bedeli lahayn waxa maartay xogaa dad badan waa ka xumaan lahayn markaasna coachka waxaan siinayaa 7 out of 10 sidoo kale fanska iyaguna aad ay u fiicnaayeen marka aad fiiriso waa hore seasonadii hore hadda la soo dhaafiyay Arsenal markii ay gool laga xirabo maartay fanska iska nijibi jireen oo qaar baa iska bixi jiray hadda laakiin it looks like maartay mentality-ga xitaa maartay fanska inay soo noqotay oo ay arkaan in Arsenal ay wax sameynayso hadda they are up to something maartay inuu progression u socdo meesha waa laga fahmayaa marka fanska iyaguna aad ay u fiicnaayeen 10 out of 10 ayaan siinaya akhyaaray idinkuna ra'yigeena iyo waxa ka qabtaan iyo ciyaaryahanada sida ugu codeyn lahaydeen iyo waxaad يعني معناها aad isleedihiin kaas aad ka gaabisay kaas ku badisayna waxaad igula wadaagi kartaa qaybta commentiga sida iyo nabadgelyo idinkaga tagaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.